waa nafaqada weeyaan oo haweenkii ay ayagana sabirkii ku yaraaday raggiina uu maaragtay xaggii dhaqaalihii iska dantii ay fara badatay haweenkii hadda ka hor dee guriga uun joogi jiray ee la iska xukumi jiray eega xafiisyaal loo sameeyey ay danahooda kaga hadlaan berigii hore intay wax kasta loo geysto waxba la siinin bay iska dulqaadan jireen oo iska joogi jireen hadda laakiin markay xafiisyo haweenkii ciyaalku xuquuqda haweenku u dooda la sameeyey maxkamadii shareecada oo biilkoodii iyo nafaqadoodii iyo daryeelkoodii iyo wixii oo dhan u doodaysa la sameeyey horta way jirtaa oo burburka isna wuu badanaya mar haddii maxkamad la iskeeno ceebahoo dhan baa bannaanka imanayo oo in maaragtay uu burbur yimaado waa suuragal laakiin qofka waxa erinaya waa baahi oo keliya baahidaasi 10% baa waxay yihiin wax ayaga ragga diidan laakiin inta kale waxay leeyihiin dhaqan weeyaan waxay leeyihiin waa maxay sababta haweenku guryaha uga soo baxeen ma rag gooni ay ka calacalayaan oo ka cabanayaan mise rag oo dhan baaba isku mid noqday dhibaatada ugu weyn waxa weeyaan haweenka waxay ka soo cararaan qofkii markuu xoogsata yahay dee reer iyo jaadku ma filaan karo waxa uu xoogga saaraan waxa weeyaan jaadka marka jaadkii markii guriga waxba loogu geyn waayo qadeen rageen oo suuqa iska wada fadhiistay oo iska mirqaamo oo maaragtay haweenkiina soo kacaan oo meeshii xuquuqdooda ay ku heli karaan ay yimaadaan danta ku qasabtay jaadka way sababtuna waa biil la'aan ubadkiiba hoostooda ku ooyo sabirka hadda meel ay ku hagaagaan may garan jirin laakiin hadda waxay heleen meel ay ku hagaagaan oo looga qaado wixii u baahnaayeen marka saasay maaragtay hadda xafiisyada ku yimaadaan oo dadkan faraha badan aad aragto xuquuqda ilmihii iyo teedii bay raadinayaan xishoodkiina waxooga waa iska yar